waxaan markhaati ka ahay ilaahay hortiis in kaalintii aad lahaydeen aad buuxiseen oo galmudug aad ku lahaydeen oo amniga aad ku lahaydeen oo la idinku lahaa inaad buuxiseen anaa markhaati ka ah waxaanan ogeyn xaquuqdii aad galmudug ku lahaydeen inaad hesheen iyo in kale laakiin haddaan ogaaday in xaquuqdiina dhinacaas ay ku maqan tahay aniga kan gobolada hore ahaan haddaan ilaahay laga waayin waxay aan idiin awoodo haddii ilaahay idmo oo awoodayda ah qofka laguma adoonsan wuxuusan awoodin wixii anigu aan awoodo oo ceel dahab u awoodo oo degmooyinka la midka u awoodo haddaan ilaahay laga weyn aniga la iga weyn maayo insha Allah waxaad mudantihiin waa aqaan oo cidna ii tilmaami mayso insha Allah kariim waxaan kaloo rabaa inaan idin iraahdo waxa aad mudan tihiin sharafkiina quruxdiina isku daygiina beeraha oo maxaan ku iraahdaa ay caanka ku tahay galmudug gaar ahaan gobolka mudug meesha ugu beeraha wacan ugu dalxiiska wacan ugu maxaan ku iraahdaa wax soo saarka wacan in aad tihiin baa markhaati ilaahay ka ah waxaan kaloo ilaahay markhaatiga aan ka ahay inaad ceel la'aan tihiin oo aad xooggiina iyo ceel gacmeed iyo wadaan biyo lagu soo shubay beeraha quruxda arkale inaad ku samaysaan maanaha inaad ceelal mudan tihiin oo dadka ceelasha ugu mudan aad tihiin maadaama wax soo saar aad macruuf iyo caan ah ku tihiin anaa og markhaati baan ka ahay ilaahaysan waxaan ka baryahayaa waxaa looga bixi karaa abaaraha iyo geedaha qalalay waxaa looga bixi karaa ilaahay deeqiise iyo doog ayaa looga bixi karaa ilaahayna waxaan ka baryahayaa in ilaahay roob inuu nasiiyo madar khayr ilaahay inuu nasiiyo annaguna waxaan ku dadaalaynaa sidii degmadaas haddii ilaahay aan laga waayin ay u heli lahayd waxay xaqa u leedahay wasiir Cumar waxaan leeyahay walaalkay wasiir oo yiri aab waxaan anna wax ii tarahay anna aan wax ku dhimayn waa haruubka habar laago buuxiye adigana waxaan ka codsanayaa il gaar ah inaad dadkaas ku fiirisid haddii ilaahay aan laga waayin waxaan warkay ku soo dhaweynayaa waa dhownahay waa mahadsantihiin walaalkay Saciid Nootaayo hoolkan quruxda badan iyo hoteelkan quruxda badan oo ka sameeyay ceel dahab waxaan leeyahay nin kasta oo ganacsada ah tuuladiisa iyo degmadiisa ha u huro sida Saciid uu ugu huray guriga quruxda badan oo kale sida ugu huray nin walba ha u huro Saciidna waxaan leeyahay annagana abaal naga weyn maysi ilaahayna ajir baa ka helaysa annagana abaal baa naga helaysa aad iyo aad buu Saciidna u mahadsan yahay adinkoo dhan wax soo saarkeena iyo gobonimadiina iyo sharafkeena waa ku mahadsantihiin waxay annagu aan karnana waa karaynaa nagana weyn maysaan haddii ilaahay aan laga weyn aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin